oo ku shaqeysa nidaamka la yiraahdo membershipka. next fahamka yani uga baahan tahay marka shirkadda halkaa joogto maxay tahay halkan inaad joogto maxaad uga baahan tahay faham noocee baad adiga ka haysataa kambanina kusoo biirto yani markaad kusoo biirto faham ceenkee baad ka haysataa maxaad ka heli karaysaa yani maxaad uga baahan tahay halkan inaad kusoo biirto. number 1 lacag badan baad doonaysaa. qof kastaba hami buu leeyahay, dhaqaale inuu sameeyo buu doonayaa, lacag inuu sameeyo buu doonayaa. marka hadafkaaga dhaqaale halka waa ka helaysaa. yani dakhligaaga iyo mushaaraadkaaga iyo waxaa qaato waxaa laga yaabaa inay kugu filneen. qarashaadka aad bixiso iyo waxaad hesho waxaa laga yaabaa qarashaad kaa baxa inuu aad u badan yahay. halkan dakhli kugu filan weliba kaa badan ayaad ka samayn karaysaa. sidoo kale howlgab markaad noqoto dakhli kugu filan oo joogto ah baad heli karaysaa oo innaba aan caadi ahayn oo aad ku diirsanayso adiga iyo carruurtaadana aad ku noolaan karaysaan. halka markaad shaqaalo tahay ama aad ganacsi caadi ama caadi ka shaqaynaysid yani howlgabnimadaada aadan u haysan wax keed ah halkan inta aad yani ka shaqaysanayso ayaad dakhli joogto ah ka samaynaysaa oo kugu filan. markii aad howlgab noqotana waxa weeyaan adiga iyo carruurtaadaba waxaad haysataan hanti idinku filan ayaad haysataan. sidoo kale qof kasta wuxuu raadinayaa dakhli inuu helo, dhaqaale inuu helo ayuu qof kastaba raadinayaa. halkan dhaqaalihii aad raadinaysay iyo dakhliga kugu filnaa oo aad raadinaysay halkan ayaad ka helaysaa oo weliba sidaa doonto iyo intaa doonto ayaad ka shaqaysan karaysaa. sidoo kale ganacsigan waa home based business, waa ganacsi guriga loogu talagalay in looga shaqaysto mobilkaaga iyo internetka kaliya u baahan tahay. next hadda maxaa adiga uu kambani kuu samaynaya kambaniga maxaa ka faa'iidaysaa uu kugu talagalay kuu samaynaya. kow dakhli online ayaa ka shaqaysanaysaa, online income yani lacag baad ka samaynaysaa dhanka online-ka ayaa ka samaynaysaa. weliba kambanigan lacagaha wuxuu kugu siinayaa USDT ahaan crypto ahaan ayuu kambani lacagaha kugu siinayaa. 5 qaabna kambaniga waad uga shaqaysan kartaa weliba dakhli joogto ah oo firfircoon ayaad kambaniga ka samayn kartaa. sidoo kale waxa weeyaan ganacsiga kambaniga ka shaqaynaysid waxa weeyaan wuxuu u baahan yahay membership maadaama uu kambaniga yahay laba walxaata kaliya kambani kaa rabaa. $50 registration yani $50 oo registration iyo $15 oo aad ku joogtaysanaysid xubinnimadaada si aad u hesho waxa weeyaan horumarka adiga oo kambaniga saad u haleesho. yani waxaa lagaa rabaa kaliya kambanigu kaa rabaa one time registration, hal mar kaliya isdiiwaan geliso iyo bil kasto oo $15 aad ka bixiso. kambaniga wuxuu kaloo kuu diyaarinayaa waxbarasho joogto ah ayuu kambaniga kuu diyaariyey iyo maskaxdaada in la diyaariyo weliba lagugu tababaro yani lagala taliyo siduu ganacsigaaga ku guulaysan lahaa. mawduucyo kala duwan baa lagugu barayaa. sidoo kale habdhaqanka bulshada sida bulshada loola macaamilo ayaa lagu barayaa. sida bulshada maskaxdooda wax looga bedelo ayaa lagu barayaa. sida bulshada loo horumariyo oo horumarkooda dhaqaale yani inay gaaraan loogu fududeeyo ayuu kambanigu kuu saacidayaa. hogaamiye dhammaystiran buu kambaniga kaa dhigayaa. next haddaba waxaad ka mid noqon kartaa ganacsigan qiimaha badan ee Viva Magnifica ayaad ka mid noqon kartaa waadna ka faa'iideysan kartaa weliba horumarka intaad u baahan tahay baad ka samayn karaysaa. haddaba Netflix iyo waxaad bardhigayaa Viva Magnifica maxay bixisaa Netflix sidoo kale maxay bixisaa Viva Magnifica. Netflix 240 milyan oo members ah ayaa adduunka oo idil ku jira. haddana wax gunooyin ah oo ay ku soo celisay ma jirto. bil kastana waxay bixiyaan membership fee way bixiyaan ama lacagta membership way bixiyaan. haddana wax lacag ah oo ay ku soo celisay ma jiraan. wax qiimo dhimis ah oo ay helaana haba yaraatee ma jiraan. sidoo kale wax discount ah ama qiimo dhimis ma helaan. sidoo kale wax dhiirigelin ah oo ay helaana ma jirto. halka Viva Magnifica qof kasta oo member ah membershipka uu bixinayo uu helayo lacag joogto ah ama dakhli joogto ah uu bil kasto ku xisaabtami karo. sidoo kale kambanigu waxaad ka samayn kartaa $6,144 adigoo waxna iibin waxna qorin ayaa kambanigu bishii waxaa ka samayn kartaa $6,144. sidoo kale kambanigu gunooyin joogto ah ayuu kambanigu ku siinayaa. shaqo kastood qabato iyo dadaal kastaad samayso kambanigu wuxuu kugu siinayaa gunooyin joogto ah ayuu kugu siinayaa. weliba 5 siyaabood oo kala duwan ayaa kambaniga lacag kaga samayn kartaa. weliba kambanigu wuxuu kugu tababarayaa qaabka xayeysiinta joogtada ah, xayeysiinta digital marketingka ah ayuu kambaniga kugu tababarayaa. weliba digital marketing weliba si fudud weliba waxaan kugu haynaa dhanka digital marketingka istaraatiijiyad aad u fudud
oo ay dad badan ka faa'iidaysteen millions of dollars ay ku sameeyaan ayaan ku hayaa oo aan kaaga faa'iideynayaa weliba waa sirta nolosha oo adiga ganacsiga online-ka looga faa'iidaysto si fudud ayaa adiga iyo asxaabtaadaba dakhli waxaa ku samayn kartaan innaba aan caadi ahayn. waxaan rajaynayaa inaad kusoo biirtaan oo aad istaraatiijiyadaasna naga faa'iidaysataan si aad u bulaashaan horumar dhaqaale aad u samaysaan. next haddaba kambanigu waxa weeyaan aasaasaha kambaniga iyo mulkiilaha kambaniga hal abuurka kambaniga waxaa iska leh yani ninka lagu magacaabo Master Onia Luisa wuxuu ka dhisay 50 wadan in ka badan ayuu wuxuu ka dhisay 12 milyan oo xubnood team gaaraya 12 milyan oo xubnood ayuu wuxuu ka dhisay 50 wadan in ka badan sidoo kale wuxuu ku kasbaday 1 milyan oo dollar wax ka yar 6 bilood sidoo kale waxa weeyaan wuxuu la taliyay uu abuuray uu tababaray milyaneer kala duwan wax ka yar 2 sano shakhsi ahaan waxa uu shaqaaleysiiyay in ka badan 1800 oo qofood sidoo kale markii uu isqoray saacad gudaheed wuxuu ku diiwaan geliyay 30 qofood sidoo kale waa tababare dhanka maskaxda ah dadka guuleystayaasha ah ayuu maskax ahaan dhisaa si ay guulahooda u gaadhaan sidoo kale tababar ganacsadayaasha ka shaqeeya online-ka ayuu aad u dhiirigeliyaa si ay ugu guuleystaan ganacsigooda network marketingka ama multi level marketingka sidoo kale waxa uu ku hadlaa 5 luuqadood ku hadlaa 30 sano oo khibrad suuqgeynta shabakada ama network marketing lagu leeyahay 50 wadan ayuu socdaal ku tagay sidoo kale wuxuu ku nool yahay wuxuu ka soo jeedaa Krakow ayuu ka soo jeedaa dalka la yiraahdo South America ku yaalo ayuu ka soo jeedaa sidoo kale yani waxa weeyaan waa company yani aanan wax adiga oo debti free ah weeyaan waa company multi billion ah oo adigana aad dhaqaale xasiloon aad ku gaari karayso sidoo kale company-gan xilliga hadda la joogo wuxuu ku jiraa xilliga berelaanjiga ama xilli aas ah ayuu ku jiraa company-ga xilliga aasaaska company-na waa xilliga ugu fiican maxaa yeelay waad la koraysaa sidoo kale CEO company-gu waxa weeyaan waa Mrs. Tricia Toykap waa halka qofka ugu sareeya dhanka maamulka ama fulinta company-ga waxay leedahay khibradda maareynta ganacsiga oo 12 sano ah yani business management ayay waxay u leedahay 12 sano khibrad 12 years of experience sidoo kale 8 sano oo khibrad ah ayay u leedahay suuqgeynta shabakada ama network marketingka sidoo kale shahaado suuqgeyn ah iyo hogaaminta istaraatiijiyadda iyo isgaarsiinta iyo iibka intaba waxay ka haysataa shahaadooyin ilaa master ah ayay ka haysataa shahaadooyin sare ah ayay ka haysataa sidoo kale waxa weeyaan 35 wadan ayay kooxo ka dhistay ama members caalami ah ayay ilaa 35 wadan ka dhistay 14 wadanna safaro iyo socdaalo ganacsi ay u tagtay waa tababare dhanka nolosha ah istaraatiijiyadda ganacsiga iyo ganacsadaha intaba tababare joogta ay siisaa qof ganacsadaha dhan walba sidoo kale waxay degan tahay wadanka leedo Trinidad and Tobago ay iyadana degan tahay next higsiga ama hadafka higsiga sare uu company leeyahay himilada company leeyahay aragtida shirkadda waxa weeyaan dadka xorriyadooda dib loo siiyo sidoo kale dadku inay dhoola cadeeyaan wajiyadoodana laga dareemo dhoola cadeyn farxad xubnaha company ku soo biira in adiga xorriyadooda dib loogu soo celiyo sidoo kale wajiyadooda in laga dareemo dhoola cadeyn farxad sidoo kale dadka noloshooda in wax laga bedelo waliba waxa weeyaan iyadoo loo marayo warshada suuqgeynta shabakada ama network marketingka iyadoo loo marayo dadku in noloshooda wax laga bedelo sidoo kale yani shirkadu waxa weeyaan waxay ka saacidaysaa dadku inay dhaqaale fiican sameeyaan 2030ka dad milyaneer ah inay soo saarto ayay company-gu doonayaan waliba hadafka shirkadu waxa weeyaan sameynta nolosha shakhsiyaadka inay isbedel ku keento oo waliba iyadoo la kordhinayo dakhligooda iyadoo la kordhinayo in noloshooda sare loo qaadayo waliba company-ga waxa kale oo hadafkiisa kamid ah 1 milyan oo qof 1 milyan plus 7 milyan oo qof ayuu company-gu wuxuu doonayaa sanadka soo socda sanadka 2030ka inuu noloshooda wax ka bedelo waa 1 milyan ilaa 7 milyan oo qof ayuu wuxuu doonayaa ilaa 2030ka company-ga inuu noloshooda wax ka bedelo sidoo kale waxa weeyaan company-gu wuxuu u taagan yahay dadka in la tuso sidii ku guuleysan karaan waliba in lagu guuleysan karo network marketing dadka in la baro dadku badan waxay aaminsan yihiin network marketing lagu guuleysan karin laakiin in lagu guuleysan karo in la baro ayuu company-gu u taagan yahay next road map company-gu waa kana marka
kambanigu marxaladiisa bilowga waxay ahayd November 2023 laakiin toos wuxuu u shaqo bilaabay sanadkan 2024 weliba sanadkan saacadda hadda la joogo oo kuwaatarka saddexaad la marayo kambanigu wuxuu haystaa 30,000 oo memberis oo daafaha caalamka ah ayuu haystaa isla kuwaatarkan saddexaad ee hadda la joogo kambanigu waxaa diyaar ah qaybta caafimaadka iyo yani badqabka health and wellnesska ayaa diyaar ah saacadda la joogo kuwaatarka saddexaad sidoo kale daafurka rasmiga ah kambanigu waa kuwaatarka koowaad ee 2025 weliba kambaniga xilligaas ayuu barnaamijka ka baxaya ilaa laga gaarayo bilowga hore ee 2025 kambanigu wuxuu ku jirayaa barnaamij marka kuwaatarka koowaad ee 2025 ayuu kambanigu wuxuu ka baxayaa barnaamijka kambaniga intuu barnaamij ka yahay dadka ka faa'iideysto ayaana mudnaanta koowaad iyo labaad iyo saddexaad iska leh sidoo kale yani kuwaatarka labaad ee 2025 kambanigu wuxuu bilaabayaa qaybta travelka ama safarada uu qofka ka faa'iideysan karo inuu kambaniga kala shaqeysto dhanka lacag fiican kaga sameeyo weliba adigoo kambaniga kula shaqeysanaysid sida inaad personal travel agent inaad too kale aad kambaniga kala shaqeysanaysid sidoo kale kuwaatarka yani afaraad ee 2025 kambaniga wuxuu soo deynayaa online gamingka ayuu kambaniga soo fasaxayaa oo qof weliba dhanka online gamingka uu lacag fiican ka sameyn karo weliba isla online gamingka kaligiis uu siyaabo kala kaga shaqeysan karo sidoo kale kuwaatarka labaad ee 2026 kambanigu wuxuu soo saarayaa insha Allah qaybta cryptocurrency-ga ayuu ooda ka soo qaadayaa sababta loo fogeeyay cryptocurrency waxay tahay kambanigu wuxuu qorsheynayaa crypto exchange u gaar ah next roadmap qoraal waa kana wajiga hore waa kaasa hadda wuxuu taagan yahay kambaniga halka marka 30,000 memberis waa halka uu taagan yahay hadda kani waa halkan joogno waxa waaye sidoo kale wajiga koowaad oo soo sheegnay waxa weeyaan kambanigu waxa daafurayaa hadda xilliga hadda la joogaa wajiga koowaad daafurka kambaniga wajiga koowaad waa hadda la joogaa waa kuwaatarkan saddexaad aan joogno waa health and wellness wajiga labaad kambanigu waxa daafurayaa 2025 kuwaatarkiisa koowaad waxaan xilliga kambaniga si official ah loo laanji gareynayo xilligaasna waxa soo bixi doono sidaan sheegay يعني daafurka rasmiga iyo qaybihii kale waliba kuwaatarka labaad uu soo baxaya dhahe qaybta safarka ama travelka kuwaatarka afaraadna waxa soo baxayo qaybta online gamingka 2026 kuwaatarka labaad waxa soo baxayo cryptocurrency marka kambaniga roadmap cad oo fiican buu hayaa qofkii ka faa'iideystana maanta mudnaan gooniya ayuu leeyahay next haddaba kambanigan maxay tahay ujeedada ugu soo biirayso kambani kasta waxa waaye sabab waxa jirta lagu soo biirayo kambanigan mudnaan gooniya ayuu leeyahay number 1 kambaniga FIFA Magnifica xubinimadaada Premiumka waxay ku siinaysaa fursad inaba caadi ahayn oo hadda ku bilaabi karto inaad isla markiiba kasbato lacag aad kasbato oo aad shaqaysato weliba kambaniga isla saacada la joogo 5 kamida siyaabaha 4 kamida 5 qaybood ee saacadaas la joogo diyaarka ah ee lacagaha looga sameeyo ayuu kambaniga saacaas la joogo kugu siinaya saacada aan hadlayno 5 kamida siyaabaha kambaniga lacagta looga sameeyo 4 kamida siyaabaha kambaniga siyaabaha shanta ah ee kambaniga lacagta looga sameeyo ayaa haatan ka faa'iideysan kartaa waxa ugu horeeyo 60% oo qof kasta oo linkiga soo qaata aad yani ka helaysid qofkiibana aad $30 ka helaysid qof kasta oo linkiga soo qaata sidoo kale waxa kamid ah lacagta leedahay matrix bonus waa dakhli joogto ah oo bil kasta lagu xatimi karo kambaniga 5% ayuu ka siinayaa qof kastaba monthly membershipka billaha uu bixinayo ayuu ka siinayaa waana dakhli joogto billaha matching bonus 50% ayuu kambaniga ku siinayaa weliba qof kasta oo teamkaaga ka tirsan oo liiskaaga ku jira ayuu kambaniga wuxuu ka siinayaa lacagaha billaha ah oo matrixka ay helayaan 50% weliba qof kasta oo liiskaaga ka tirsan weeyaan qof kasta oo linkiga ka talaalan ayuu kambaniga wuxuu ka siinayaa 50% ilaa 5 fac oo kala hoosana lacagta matching bonuska wad ku leedahay lacagaha matching bonuska iyo matrixka inaba caadi maahan waa dakhli joogto ah oo bil kasta lagu xatami karayo sidoo kale kambanigu wuxuu diyaar ku leeyahay diamond pool 2% inuu ku siiyo haddii aad gaadho halka ugu sareeya ee kambaniga ee diamond la yiraahdo haddii aad gaadho iibka guud uu kambaniga ka sameeyo caalamka faa'iido ka soo xaroota ayuu kambanigu wuxuu ku bixiyaa 2% inaba caadi maahan next okay waxa weeye haddaba doorka aad ka ciyaari kartaa marka kambanigu door ceenkee ah ayaa kambanigu ka ciyaari kartaa aan wada dhisno bulshadeena kori xubinnimadayada yani xubinnimadayada aan korino
bulshadiina aan dhisno xubinnimadana aan korino nafteena aan gelino booska ugu sarreeya kambaniga ama nidaamka matrixka halka ugu sarreeyna sida aan geyno xasuusnow xubnaha sida tooska ah adiga waxa weeyaan si toos ah ayaa loo meeleynayaa qof kasta oo adiga matrixkaaga oo adiga la diiwaan geliyo si automatic placement ah ayuu u hoostagayaa qofkii ka horreeyey qof kastana qofku kaga soo horreeyey dhanka matrixka uu kaga jaanis fiican yahay si loo soo galo diiwaanka horreeyey sidoo kale marka waxa weeyaan waxaa tahay qofka koowaad waa inaad noqotaa maadaama matrix positionka mar kastaba lagu kala faa'iido badan yahay waa inaad hubisaa inaad noqoto qofka ugu horreeya isqora weliba kambaniga noqo macluumaad bixiye kambaniga waxaadna ka samayn kartaa $6,144 oo matrix ah oo bilo ah adigoona waxna iibin waxna qorin haddii aad tiim dhisato oo yani tiim adag dhisatana waxaad ka samayn karaysaa matrix keliya $49,152 oo bilo ah waa keliya matrix $30 qof kastaad qorto ayaad ka helaysaa lacagahaaga matrixka heerkaas inay gaaraanna waxa weeyaan qorshe inaad leedahay hadaf leedahay ka go'naansho aa leedahay bay kaaga baahan tahay anigana garab baan kugu siinana insha allah hadduu la yidhahdo next noqo hogaamiye aragti leh samaynta mararka qaarkood arrimaha noocaas oo kale oo barnaamijyada guulaha ah caqabado badan baa kala kulmaysaa laakiin waqtigan hadda aad taagan tahay waa waqtiga ugu fiican uguna habboon ee aad ganacsi kasta qayb ka noqon karto guul aad ka gaari karayso waxaad noqon kartaa mid ka mid ah hormuudka FIFA Magnifica kordhi dakhligaaga aqoontaada oo soo bandhig awooddaada ugu weyn raac aragtida kambaniga uu leeyahay raac ee ilaa ku xidhan raac sidoo kale si wada jir ah ha loo shaqeeyo lacagtu si wada jir ah ha looga shaqeeyo team work baa loo baahan yahay in lagu wada shaqeeyo in la wada shaqeeyo team work baa loo baahan yahay si wada jir ah far kaligeed fool ma dhaqdo sidoo kale la wadaag aragtidaada dadka kale si ay kagala faa'iidaystaan garo himiladaada himilooyinka aad leedahay garo waxaad noqotaa qof himilooyin leh qof hadaf leh higsi leh naqo oo fursadda aad haysato maanta iyo awooddaada ka faa'iidayso next haddii aad u baahan tahay inaad fursadda ka faa'iidaysto nala soo xidhiir mar walbo diyaar baan u nahay inaan ku caawino waxa kaliya aad ku biiri karto waa FIFA Magnifica iyadoo loo marayo isku xirka xubinta gaarka ah ee uu bixiyo kafaala qaadayaasha waxa weeyaan qof baa kambaniga kugu soo casuumay barnaamijka aad ku jirto qof baa kugu soo xidhay qofkaabaad aadaysaa qofkaabaad linkiisa ka diiwaangelinaysaa qofka waxaa u diraysaa emailkaaga iyo magacaaga iyo xogtaada u diraysaa isaa ku diiwaangelinayo amaba adaa isdiiwaangelinaysa isa ku hagayo kambaniga haddii aad u baahantana kala xiriirto emailkaas support@fifamagnifica.com baad kala xiriiraysaa haddii aad doontana websiteka kambanigaad booqan kartaa si aad wax badan u ogaato ah fifamagnifica.com thank you waad mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida wanaagsan dareenkiin aad noo siiseen noona dhegaysateen aad iyo aad baad u mahadsantihiin thank you so much